shirkii wadatashiga ahaa ee maanta ka qabsoomay waddanka Djibouti isla markaasina u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya kuna qabsoomay curinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo hogaamiyaasha kale ee gobolka ee kala ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mudane Abiy Ahmed, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi si dib loogu bilaabo wada hadaladii ku saabsanaa xiriirka labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya. Waxa ka soo baxay qodobadan. Hogaamiyaashu waxay aqoonsadeen kaalinta muhiimka ah ee Jamhuuriyadda Djibouti kaga jirto nabadeynta gobolka Geeska Afrika. Waxa la isla gartay in muddadii ka horeysay shirkan taariikhiga ah ay dhaceen dhowr wareeg oo wada hadallo ah balse aanay ka soo bixin wax midho ah. Madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waxay isla garteen in guddi farsamo oo ka kooban laba wafdi ay dib u bilaabaan wada hadaladii labada dhinac, sidoo kale ay daba galaan heshiisyadii iyo arrimihii hore loogu heshiiyey ee aan fulin. Waxay labada dhinac ku heshiiyeen inaan la siyaasadeynin gargaarka dhinaca horumarka iyo maalgashiga. Shirku waxa uu soo jeedinayaa in Djibouti ay noqoto goobta shirarka farsamo ay ka qabsoomayaan. Waxa la isla gartay in muhiimadda u sarreysa ay leedahay danaha labada shacab ay ahaato xudunta wada hadallada labada dhinac. Shirku waxa uu ku boorinayaa dhammaan ururada gobolka, qaaradda iyo caalamkaba in wada hadalladan ay isugu geeyaan taageeradooda. Warmurtiyeedkan ayaa waxaa ku saxeexan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Djibouti, waxaana uu soo baxay 14 Juun 2020. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV.